Jaraa'idada ugu waaweyn ee kubadda cagta ayaa qorayay maalmihii la soo dhaafay wax ku saleysan 2010 ilaa 2019. Tani waa sheeko la xiriirta 10kii sano ee la soo dhaafay iyo sida ay kubadda cagta u ahayd mid muhiim ah. Waxaynu markan idinla wadaagi doonaa shaxda riyada ee 10kii sano ee la soo dhaafay kubadda cagta. Shaxdan waxay noqon doontaa mid ay ka buuxaan xidigaha ugu waaweyn ee kubadda cagta. Si aad u hesho shaxda riyada 10kii sano ee la soo dhaafay, fadlan inala daawo muuqaalkan. haddii channelkeena Shavinho Tube uu ku cusub yahay, fadlan subscribe saaro nagu soo biir riix gambaleelka digniinta si durbaba ay ku soo garan muuqaalada xiisaha leh. aad iyo aad u mahadsan tahay. kubadda cagta 10kii sano ee la soo dhaafay waxaa maamulayay labada xidig ee kala ah Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. laakiin marka loo fiiriyo shaxda riyada ee 10kii sano ee la soo dhaafay intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2020 waa in la xusaa 11 xidig oo la fahansan yahay in shumac ay iftiin u ahaayeen kubadda cagta caalamka. xidigahan waxay ka kala tirsan yihiin kooxo kala duwan, waase macquul in qaar ka mid ah hal koox ay ku soo wada ciyaareen. haddii aan ku bilowno goolhayaha, waa ninka lagu magacaabo Manuel Neuer. waa mid ka mid ah goolayaasha ugu wanaagsan ee kubadda cagta caalamka. xilligan wuxuu u muuqanayaa bil sii dhacaysa, laakiin koobkii adduunka 2014 ayuu gacanta u geliyay waddanka Jarmalka. sanado xiriirana waxa uu ahaa goolayaha ugu wanaagsan kubadda cagta. awoodiisa ayaana ka dhigaysa in goolayaha uu noqdo shaxda 10kii sano ee la soo dhaafay. lambarka labaad waa Dani Alves. difaacan reer Brazil waxaa lagu tilmaamaa nooc ka mid ah difaacyadii ugu wanaagsanaa ee taariikhda kubadda cagta soo maray. wuxuu waqtigiisii ugu fiicnaa ku qaatay kooxda Barcelona, waxaana uu ku guuleystay xirfadiisa kubadda cagta 31 koob, taasi oo u fasiraysa xidiga ugu koobabka badan kubadda cagta caalamka. difaaca kale oo ay xogtani taabanayso isla markaana lagu tilmaami karo difaac wax badan qabsaday 10kii sano ee la soo dhaafay waa ninka ka soo jeeda waddanka Spain iyo kooxda kubadda cagta Barcelona, Gerard Piqué. waa sirta guulaha waddanka Spain iyo kooxda Blaugrana, waxaana uu ka mid yahay xidigaha ugu garaadka badan kubadda cagta haddana ugu qanisan. Sergio Ramos ayay sidoo kale xogtani taabanaysaa. 10kii sano ee la soo dhaafay waxa uu Ramos muujinayay awood, adkaysi, farsamo, xawaare iyo weliba dhalinta goolasha. waxa uu ka goolal badan yahay qaar ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee xagga hore ee weerarka ciyaarayay sanado badan ama qadka dhexe ka ciyaarayay. Ramos wuxuu kooxdiisa kubadda cagta Real Madrid gacanta u geliyay koobo muhiim ah oo ay ka mid tahay 3 jeer oo xiriir tartanka Champions League. ciyaaryahanka kale ee difaacyada ka mid ah waa Marcelo. difaaca bidix ee xulka qaranka dalka Brazil waxa uu muujiyay awood dheeri ah, waxaana uu dambeedka bidix Los Blancos yahay 10kii sano ee la soo dhaafay. ciyaaryahankan reer Brazil shaxda ugu wanaagsan ee sanadka muddo badan ayuu ka soo muuqanayay, waxaana lagu tilmaami karaa dambeedka bidix ee ugu wanaagsanaa 10kii sano ee la soo dhaafay. qadka dhexe waxaa ka soo muuqanaya Luka Modric, ninkan cajiibka ah ee ka soo jeeda Croatia. tan iyo markii uu ku soo biiray Real Madrid, hogaamiye walba oo maamulo Los Blancos waxa uu ku tirsanaa awoodiisa ciyaareed, waxaana uu noqday xidiga kaliya abaalmarinta Ballon d'Or ku guuleystay tan iyo sanadii 2007. marka laga tago Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, 4 jeer ayuuna kula guuleystay Champions League kooxda Los Blancos. Xavi Hernandez Cruz, mucjisadii qadka dhexe ee xulka Isbaanishka iyo naadiga Blaugrana, wuxuu qayb ka ahaa safkii Pep Guardiola, laakiin awoodiisu ma aysan noqon mid markaasi oo kaliya bilaabatay, waxaana uu heerka sare ee kubadda cagta iskeenay sanadii 1998. laakiin xilligii Pep Guardiola ayuu kubadda cagta ku burburiyay falsafadiisii iyo caqligiisa dheeriga ah. Isbaanishka ayuu gacanta u geliyay Euro 2008, Euro 2012 iyo koobkii adduunyada ee taariikhda u galay xulka Isbaanishka. saaxiibkiisa Andres Iniesta ayaa safkan ka soo muuqanaya. Rassam wuxuu ka mid ahaa lafdhabartii kooxda Barcelona, taasi oo ay ku gaartay guulo taariikhi ah. wuxuu gacanta u geliyay xulka Spain hanashadii koobkii adduunka markii uu dhaliyay goolkii guusha oo ay ka dhaliyeen waddanka Hollandeeska. ninka lambarka 6 u xiran jiray Spain isla markaana lambarka 8 u qaadanaya Barcelona waa nooc xidig oo aan mucaarad lahayn, isla markaana aad loo jecel yahay daacadnimadiisa iyo weliba hanaankiisa kubadda cagta. saddexda xidig ee weerarka waxaa hogaaminaya xidiga ugu badan ee ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or 6 jeer ayuu qaatay, waana Lionel Messi. mucjisada kubadda cagta Barcelona iyo xulka qaranka dalka Argentina wuxuu ka mid yahay xidigaha aan la hilmaami karin. haddii 10kii sano ee la soo dhaafay loo fiirinayana waa kan mudan in mar walba la xuso. mataankiisa marka loo eego biladaha ee Cristiano Ronaldo ayaa sidoo kale liiskan laga weyn karin. ciyaaryahankan cajiibka ahaa kana soo jeeda waddanka Portugal
wuxuu 10 sano la soo dhaafay sameeyay rikoorray adag tahay in xiddig kubadda cagta ciyaaro uu sameeyo waqti yar ayaana kaga haray inuu noqdo xiddiga taariikhda xul qaran ugu goolasho badan ninka lambarka 9aad waa midaydoodi ka taagan tahay waxaa jira xiddiga badan oo cajiib ah sida Luis Suarez, Sergio Kun Aguero, Robin van Persie, Radamel Falcao, Karim Benzema iyo magacyo kale laakiin aniga ahaan markaan fikradeyda dhiibto waxaan dhihi karaa dhaliyay ugu wanaagsanaa waa Roberto Lewandowski waqti qurux badan ayuu ku qaatay Borussia Dortmund waxaana hadda uu ka tirsan yahay Bayern Munich sanada 2019 marka loo fiiriyana waxa uu qabsaday waxaan caadi ahayn adiga haddii aad doonayso inaad wax ka bedesho fikradaadii nagu soo qor qaybta commentiga si aad u sheegto booska ay tahay in la bedelo tusaale ahaan haddii aad leedahay Roberto Lewandowski weerarkii ugu wanaagsan ama ahan waxaad sheegi kartaa xiddig kale oo ka wanaagsan magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho aad ugu mahadsan tahay soo boqoshada barteena